muslima oo ku nool gobolka Uttar Pradesh ee wadanka Hindiya ayaa waxay doonaysaa inay iska furto ninkeeda oo la dagaalami waayay sida ay ku warantay jariidada National Herald ee ka soo baxda wadankaasi. Gabadha ayaa maxkamadda shareecada geysay furiinkeeda 18 bilood kadib guurkeeda, waxaana maxkamadda ay u sheegtay in jacaylka ninkeeda ay ku cabudhay. Waxay sheegtay inaanu ku qaylin oo waxba aanu ka xumaynin oo xataa uu kariyo cunada kana caawiyo shaqada guriga. Gabadhu waxa intaasi ay ku dartay in markastoo ay khalad ay samayso uu cafiyo iyadoo rabta inay la muranto. Waana nin doonaya sida ay sheegtay inuu ku noolaado nolol wax walba uu ogol yahay. Wadaadka maxkamadda shareecada ayaa diiday furiinka. Markii maxkamadda shareecadu ay diiday furiinkeeda ayaa gabadhu waxa arrinta ay u geysay golaha odayaasha tuulada oo iyana u sheegay inaanay awood u lahayn in go'aan ay ka gaadhaan arrintani. Ninka gabadha qaba ayaa waxa uu sheegay inuu jeclaa xaaskiisa oo mar walba uu sameeyo wax farxad geliya, waxaana uu ka codsaday maxkamadda shareecada in dacwadda ay dib u soo celiso. Maxkamadda ayaa waxay u soo jeedisay lamaanaha